السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والد ما تهاي والد هايستا ilmo special need ama ilmo autistiga fadlan hal mirid dhagaagaysi marar badan waxa dhacda hadii aan ay waalidiinta haysta caruuraha special needka ama autistiga inaan daalno inaan wareerno inaan isweydiino maxaa qaldan halkay dibta ka socotaa laakiin xaqiiqada aan rabo inaan ku sheega ayaa ah autismku ma aha ceeb ma aha ciqaab ma aha dib mana aha qalad adiga ka yimid autismku simply waxa weeyaan kala duwanaansho wuxuu arkaa ilmahani si ka duwan dadka kale wuxuu arkaan ayuu adduunyadan u arkaa iftiinka dhawaaqa wax kasta oo agtiisa ka dhacaya waxa uu arkaa si ka duwan dadka kale u arkaan taasina waa farqi ama kala duwanaansho waa xaalad ma aha xanuun markaad aqbasho waalid autismka iyo ilmaha autismkiisa marka aad iska dayso eedeenta ayaad arki doontaa quruxda ilmahan aqligiisa badan xoogiisa iyo awoodaha aadka u weyn Ilaahay ku manaastay iyo qalbigiisa nadiifta inside out quruxdiisa inside out ayaad arki doontaa waa gift iyo hadiyad iyo blessing Ilaahay kugu manaastay Ilaahay baa ku dooray waxa tahay waalid ku filan ilmahan isaguna wuu ku doortay waana proud ka noqono waana ku faraxsanaano waa hadiyadan cid walba Ilaahay ma siiyo dad gaar ah ayuu u hibeeyaa taa markasta ogsoonow in jacaylkaagu yahay caawimaada ugu weyn oo ilmahan heli karo adduunka ha quusanin waxa aad sameynaysaa waa wax ka badan intaad islahayd samee mar walba taa ogsoonow xataa marka aad daalantahay istil waxa tahay waalid wanaagsan ana salaamaya salaam calaykum